بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا وركا تيفيga SBC oo idin kaga imanaya xarunta SBC ee magaalada Boosaaso. Magacaygu waa Cabdiqani Boos. Qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo daafuray bandhiga buugaagta Puntland oo Garowe si rasmi ah looga daafuray. taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo digniin u diray dadka ku jira guryaha dawladda. رئيس الوزراء ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa daafuray shirweynaha bulshada rayidka Soomaaliyeed kaasoo si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka SBC ee daawadayaal u diyaar garooba. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ورابي وأهرب سرعي. هاي. وعكلوا إذا وجدنا ويلو. أنت ودنا الصهاي سين. هل بعد ما أركتين. هذا. هذا. جيل بدنا صارني. هذا إلا قرمي كام قنتاي. هذا الشيء صدع مع الماضي كم قنتاي. استنى عيلة هذا. استلاب استلاب. ما عاد عسده. هذا سوق القاري جيلك والقورة ديني. ديار طبعا الوهاية ديار حتى hormuud 4G internet xawaaro sare leh goob walba iyo goor kasta. hormuud isku xiraha bulshada. markale kula wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa si rasmi ah uga daafuray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland bandhiga buugaagta Puntland. wariyaheena Maxamed Daashane ayaa warbixintan Garowe ka soo diray. bandhiga buugaagta Puntland ee Puntland Book Fairs ayaa markii afraad oo xiriir ah ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. sanadkan bandhiga buugaagta Puntland waxaa halkudhig looga dhigay dagaalkii ay Puntland la gashay kooxda Daesh ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. ugu horeyn agaasimaha Puntland Book Fairs Puntland Maxamed Maska ayaa waxa uu ka warbixiyay bandhiga buugaagta sanadka ay qabanayaan iyo ajandihiisa. inta markaa ka imaado madaxweyne anagu dadaalkii aan 4 sano ka hor kula nimi baa ilaa abtino ku jirnaa. bandhigu waa uu socdaa sanad walbana waxaan ugu talagalnay inuusan December dheegna u dhaafin. mar walbana waxaan kaga hadalnaa sida aad la socotid habda waxa markaas taagan. sanadka mowduucu waxa uu ka hadlayaa ama uu taabanayaa argagixisada Daesh dagaalkii aan la galnay. waxaan ku faraxsanahay in sanad ka hor meesha tan xujo aan dhignay xujadaasna ilaa hadda aan la soo furin. maantana xujo kale aragna hadii Ilaahay idinka dhaw inaan furno. Puntland dadaalka iyo juhdiga ay gelisay inay ciribta dhoo argagixisada waxay door biday maanta in si cilmiyeysan oo qurux badan loogu doodo bulshadana si akademiga aan hadii Ilaahay idinka dhaw ugu gudbino. madaxweyne 3 bilood programkan soconaya si gaar ah dusha waxa loogu saarayaa hilla operation. waxaan rabaa inaad sidoo kale madaxweyne waxa meel gabagaba noo maraya Garowe Public Library. dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Fuad Abshir Adeer ayaa waxa uu bogaadiyay shaqada ay qabtaan kooxda buugaagta Puntland isagoo xusay inay u bedeleen bandhiga buugaagta Puntland madal cilmiyeed. waxaan rabaa madaxweyne hortaada inaan ku bogaadiyo barnaamijkan tiimkii muddo ka soo shaqaynayay oo runtii aragtida iyagu bilaabay oo haddana ay ku ammaanan yihiin inaanay ka cajisin. Soomaalidu wax waa bilowdaan laakiin inta badan waa laga cajisaa.
wasaarad ahaan anagoo magaca wasaaradda ku hadlaaya iyo bahda aqoontaba waxaan ballan qaadaynaa inaan sii dardargelinayna insha allah barnaamijkaas keliya ma aha bandhig buugaag lagu soo bandhigaayo keliya ma aha fursad in la siiyey inta qoraalka ku dhiiratay oo waxa ka guuxaya ama aqoonta ay xambaarsan yihiin inay bulshada la wadaagaan laakiin haddana waxa weheliya inay noqoto madal waxqabadyo badan lagu qabanayo oo ay ka mid tahay in sanad walbaba lagu gorfeeyo laguna falanqeeyo mawduuc muhiima oo bulshada muhiim u ah waxna ka taabanaya ama ka xalinaya duruufaha aynu ku noolnahay qaabaynaya masiirkeenna iyo mustaqbalkeenna madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo bandhigga buugaagta puntland furay ayaa waxa uu xusay in dowladda puntland ay guul caaj ama mucjiso ah ay ka gaareen dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee gobolka bari ee u dhexeeya puntland iyo kooxda daacish isagoo oo sheegay in dalal ajnabi ay u yimaadeen si ay uga bartaanin dagaalka qaabkay u galeen puntland waxaan idiin sheegayaa dowlado waaweyn oon hadda aan magacyadooda sheegayn baa mas-uuliyiinteeda noo yimaadeen oo wax ka barta wixii calmiskaad ka dhacay maxaa yeelay calmiskaad waxa ka dhacay marka la fiiriyo environmentiga mucjise ahay dhul aan baabuur geli karin oo dadka taga meelaha qaarkood aysan awrtu geli karin meelaha qaarkood dameeraha keliya ay galaan meelaha qaarkoodna lugta keliya dhaawaca looga soo qaado oo sahayda lagu geeyo ayaa laga dagaalamaya ciidanka hadda meesha ay ka dagaalamayaan cirkaa laga qoodiyaa oo waddo ma gasho waxay puntland ku guulaysatay caqabadihii jiray oo waddada ah iyadoo dagaalka wadda inay waddadiina farayso oo waddooyin la baxshay marka hadda maqlayseen miraale marka la qabtay miraale intaan la qaban waxaa ka horreysay 2 bilood ka mid waxaa la sugayay waddadii miraale gaari lahayd si ciidanku uga dagaalamo si loo helo hadda meelaha lagu waxa daha keenay waddadii dhaadaar laga soo qaaday boosaaso maanta waxay u jirtaa 12 kilomitir ilaa heedeys ciidan baa dul fadhiya oo ka shaqeynaya buuro dadka qaybtiisa indhahay ka argan hadda dee adduunka waa sahlanaaday laakiin dadka yaqaan ay aad u adagtahay maxamed dhaashane warbaahinta SBC garow ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah magaalada Muqdisho uga daafuray shirweynaha bulshada rayidka ah wariyaheena Cabdinuur Bashiir Cali ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray fasbahtum bi ni'matihi ikhwanukum shirweynaha bulshada rayidka ee daafurka istiraatiijiyadda ururada bulshada rayidka ayaa maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka Saalax Axmed Jaamac halkan oo ah teendhada Afisiyone uu ka daafuray shirweynahan ayaa waxaa diradda lagu saarayaa gargaarka bini'aadanimada nabadda iyo sidoo kale horumarka shirkan ayaana waxaa ka soo qayb galay wakiillo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan oo ka socotay qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa madasha faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax isagoona sidoo kale ka hadlay faahfaahiyana inta uu shirkani socdo 3 maalin waxyaabaha lagu eegi doono maanta halkaan ka furmaayo oo socdo muddo 3 maalmood ah oo furmaayo bulshada rayidka muhiimadda ugu weyn oo laga hadlaa waxay tahay qorshaha bulshada rayidka ay kaga aadan dib u dhiska iyo dowlad dhiska dalkeena oo ugu muhiimsan tahay meelaha asleenahay waxaa ka jiro gaab ama sidii la rabay ma aha haddii ahaan lahayd howlihii dowladda hay'adaheeda qabanayeen iyo haddii ahaan lahayd howlihii kale oo ay qabanayeen dadka oo private-ka ah inaan ka sameyno isku xir isla markaana aan buuxinno meelaha as dhihi karno howshu waa ka dhiman tahay marka si taas doorkiisa u qaadanana bulshada ahaan waxaan diyaarsanay istiraatiijiyo aan maanta halkaan ku soo bandhigayno muddo 3 maalmood aan kaga doodi doono istiraatiijiyada sida u falgeli karto oo shaqeey karto isla markaana dowladda howlaha ay qabanayso iyo bulshada rayidka ay u naqon lahaayeen kuwo markaa isxoojiya haddii ahaan lahayd
dhisidda kalsoonida shacabka hadday ahaan lahayd kor u qaadidda arrimaha taakuleynta bini'aadanimada. dhinaca kale iyagana waxaa madasha ka hadlay islamarkaana shaqooyinka ururada bulshada rayidka ay hayaan ka hadlay wasiirada qorsheynta iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoona sidoo kale sheegay in ururada bulshada rayidka ay aqoonsan yihiin islamarkaana lafdhabar ay u yihiin shaqooyinka ay hayaan wasaaradaha dalka. intii bulshada rayidka ahu dee horeyna way isu sheegeen annaguna waan qiraynaa doorkoodii lafdhabar bay u yihiin ummadda Soomaaliyeed tiirarka lagu taagan yahay weeye kartidii iyo adkaysigii waqtiyadii adkaa wixii la soo maray oo ay u ahaayeen markaa wax kastaba iyagu u ahaayeen way ka soo gudbiyeen ummadda Soomaaliyeed taariikh qoran lama qarin karayo dhinac kasta wuu taabanayay waxbarashaduu taabanayay caafimaadkuu taabanayay gargaarkuu taabanayay nabad dhiskuu taabanayay dowlad dhiskuu taabanayay intaasba mar kasta iyagaa qayb ka ah weli baahida waynu qabnaa waxaan rabnaa codka bulshada rayidka oo la maqlo oo dalkeena doorashooyin baa ka socda haddii ilaahay dankeeda leeyahay khilaafaad yaryar oo muxuu ahaa bulshada dhexdeeda baa iska jira haddii ilaahay dankeeda leeyahay waxyaabahaas oo dhan baa jira marka waxaanu rabnaa codkooda la maqlo dadaalkooda muuqda iyo bulsho abaabulan oo isku kalsoon oo muxuu ahaa wada jirta ayaynu kaga gudbi karnaa marxaladaha adag ee dalkeena muddo uu ku soo noolaa dowladdu dhinaceeda diyaar bay u tahay qalbi sami iyo wada jir inay bulshada kula shaqeyso. waxaan aad iyo aad u aaminsanahay roolka iyo doorka ay leedahay bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ay ku leedahay dowlad dhiska Soomaaliya weligood waxay ahaayeen cod weyn oo miisaan leh oo dowlad dhiska Soomaaliya rool iyo door aad iyo aad u mug leh ka qaatay weliba iyada oo aan hay-adaheena dowladaha aysan jirin ama hadday jireen ay tabaryar yihiin ayay door weyn ka qaateen waa cod mar kastaba u istaagsan in ay matalaan dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo qaybaha dowladnimadana qayb bay ku leeyihiin ama ha noqoto arrimaha siyaasadda ama ha noqoto arrimaha heshiisiinta ama ha noqoto arrimaha ibni aadamnimada iyo humanitarianka iyo sidoo kale inta arrimaha horumarka oo ay door iyo aad weyn ku leeyihiin roolkiina waa ku mahadsantihiin waana aqoonsanahay waxaana u taaganahay markasta inaan garab idinku siino. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka koowaad ee dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa wuxuu sheegay in ay jiraan siyaasiyiin siyaasadeynaya abaaraha dalka ka jira oo xilli dheer Soomaaliya ay la daalaa-dhacaysay. Shirweynahan oo 3 maalin socon doona ayaa maanta waxaa daafuray Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka koowaad ee dalka Saalax Axmed Jaamac iyadoona sidoo kale inta uu socdo doodo iyo aragtiyo kala duwan lagu soo bandhigi doono. maqlay niman dalka maamuli jiray oo madax ka ahaa dabacna kaga jiro oo leh abaarihii baan wax laga qaban iyo abaaraa jira war abaaruhu meelo siyaasad laga raadiyo way ka fog yihiin markii aad dhalateenna way jireen haatanna waa jiraan haddii aynan tala isu ururin oo ummadeenna dowlad wanaag iyo horumar iyo dhaaman waaweyn oo la dhiso iyo qorshayaal waaweyn aynan la iman halistaasi way inagu geedaamanta marka waxaanu leenahay war doorashada iyo nagala doora saad uga qayb keli lahaydeen abaaraha ayaynan siyaasadeen waa ina daanweyno oo ina sugayaan aynu xal waara sidii looga heli lahaa ka dood. Cabdinuur Bashiir Cali, SBC TV, Hangarka.
fadhigii saddexaad ee kalfadhiga 13aad ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi ahna siihayaha xilka gudoomiyenimo ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Siciid Mira Faarax Giire waxaa mudanayaasha aqalkani xoogayaha guud ee golahaasi Garyaqaan Cabdirasaaq Siciid Ayaanle oo ka horreeyay warbixintii shirgudoonka kalfadhigii 12aad iyo waxqabadyadii golahaasi u qabsoomay fadhigii 12aad ee laga soo gudbay wuxuuna xoogayaha guud ee golahaasi xildhibaanada ka hor sheegay in casriyeyn lagu sameeyay xarunta guud ee golahaasi isla markaana si live loo daawan doono markay xildhibaanadu ku jiraan shaqada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana doodaha iyo aragtiyaha kala duwan ay jeedinayaan si live looga daawan doono guud ahaan caalamka idil waxqabadkii kalfadhigii 12aad ee golaha wakiiladu fadhiyada goloweynaha ee kalfadhiga 12aad wuxuu fadhiistay 24 fadhi 24 fadhi uu fadhiistay kulamadii gudiyadu 22 fadhi bay ahaayeen isugeynta fadhiyada iyo kulamada gudiyadu waa 46 fadhi waa kalfadhigii ugu wanaagsanaa ee golaha wakiiladu 12 kalfadhi oo ugu badnaa uu fadhiisto waxyaabihii goluhu wuxuu ka dooday xaaladii abaaraha ee dalka 29 July wuxuu kaloo ka dooday faragelintii dowladda Muqdisho ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool 3 bishii afraad wuxuu kaloo ka dooday wax ka beddelka kaabista xeerka nidaamka kala xadaynta xukuumadda wuxuu kaloo ka dooday xeerka raanka iyo bangiyada wuxuu kaloo ka dooday xeerka kaabista xeerka booliiska waa doodihii goluhu yeeshay xeerarkii goluhu ansixiyay kalfadhiga xeerkii dakhliga guud ee cashuuraha bariga xeerkii kala xadaynta nidaamka xukuumadda xeerka ciidanka socdaalka ilaalinta xuduudaha xeerka maamulka maaliyadda xeerka rahanka iyo xeerka wax ka beddelka booliiska wuxuu ansixiyay waa kalfadhigii ugu xeerar badnaa weeye xeerarka dhaqan galay kuwa aan ansixinay maxaa ka dhaqan galay waxaa dhaqan galay xeerkii kala xadaynta nidaamka xukuumadda xeerka dakhliga guud xeerka ciidanka socdaalka iyo sirdoonka iyo xeerka maamulka maaliyadda madaxweynuhu soo celiyay mas-uuliyiintii qaran ee xilkooda goluhu ansixiyey wuxuu ansixiyey 24 xubnood ayuu goluhu ansixiyey oo u badnaa hay-adaha madaxa bannaan ayuu ansixiyey mooshinadii golaha la keenay golaha mooshinno ayaa la keenay waxaa keenay mooshin ku saabsan cudunta xeerka amniga qaranka mudane Axmed Nuur Guruujo mooshinkaas ma ansixin waxaa keenay isna Maxamed Xasan Siciid mooshin ku saabsanaa sidii golaha wakiiladu taageero muhiim ah u lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xildhibaanada mooshinka keenay in la aqoonsado Jamhuuriyadda Soomaaliland waayahay mashaariicda gudiyadu gacanta ku hayaan xeerarkan golaha gudiyada gacanta ku haya xeerarkaas oo soo baxa ayuu goluhu shaqayn karaa wax ka beddelka xeerka saxaafadda 2 sanadood waxaa haya guddiga arrimaha bulshada 2 sanaad haysaan xeerkaasina waa muhiim waxaa dalka maanta ka socda haddii xeerka la keeno wax badan laga qaban lahaa waayo xeerka wax ka beddelka jinsiyadda guddiga ayaa haysa arrimaha gudaha wax ka beddelka iyo kaabista xeerka hay'adda diyaargarowga afooyinka waxaa haya guddiga khayraadka xeerka tamarta guddiga khayraadka haya wax ka beddelka xeerka xanaanada xoolaha guddiga tamarta haysa Allahumma musta'an wax ka beddelka iyo kaabista xeerka wadamarista iyo gaadiidka guddiga howlaha guud haysa way soo dhamaystireen way ku mahadsan yihiin xeerka amniga tiknoolajiyadda xeerka ilaalinta xogta elektaroonigana waxaa haya guddiga howlaha guud wax ka beddelka xeerka ciqaabta guudna waxaa haya guddiga garsoorka xeerka horumarinta warshadaha waxaa haya guddiga arrimaha dibadda ajanduhu inoogu jira xeerka kaalmada adeegsiga sharciga ah iyo xeerka adeegsiga iskarabsiga dowladda iyo xeerka wax ka beddelka kaabista xeerka lumaysiga saddexdaa xeer waa 3 xeer oo cusub oo hadda inoo yimi oo maraya first reading xeerarka goloweynaha hor yaalla goloweynaha waa hor yaalla oo u baahan in loo codeeyo xeerka dakhliga shidaalka wax ka beddelka xeerka maamulka maaliyadda labadaasba golay hor yaallaan xeerarka guursida ku maqan xeerkii raanka ku maqan xeerkii ciidanka booliiska ku maqan
wax ka beddelka xeerka kufsiga guddoomiye xeerkaasu intaynaan golahaba iman ayaa guurtida loo geeyey 10 sannadood bay hayaan 10 sannadood 10 sannadood bay hayaan xeerkaa يا waayahay golihii go'aamadu gaadhay goluhu wuxuu gaadhay intii uu ku jiray shaqadiisaas 3 go'aan oo qaar maamula iyo qaar siyaasadda waxqabadka guddiyada golaha business committee-ga ugu horeysa guddiga howlaha waxay yeesheen dhowr kulan oo ku falaqaynayeen howlaha guddiga sida miisaaniyadda fadhiyada golaha xeerarsaadka golaha isku shaandhaynta guddiyada shaqaalaha golaha iyo xeerarka kale golaha horyaala guddiga business committee-gu shaqooyinkaas ayay soo qabteen guddiga joogtada ah kulamo badan bay qabteen waxay kulan la yeesheen xog waraysi la yeesheen mas'uuliyiin wasaaradda horumarinta beeraha ayay la kulmeen November 23 waxay guddiga xog waraysi la yeelatay duqa degmada caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge go'aanada guddiga la xiriira guddiga tacliinta sare go'aan bay ka soo saareen ay leeyihiin qodobka aad qaadateen sharciga ma waafaqsana qodobkaana golaha loo soo hordhigo si golaha ugu raaco ama ugu diido golaha waxaa lagu sameeyey saad aragtaan dib u habeyn ballaaran waxaa lagu sameeyey dib u habeyn sound system-ka lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey in xildhibaanku hadalkiisa muuqaal iyo afba inuu record yahay saacadda uu ku dhufto mikrofoonka oo aynu kaga baxayno halkii aynu mar walba hadal qoraalka qori jirnay waxaanu helaynaa xildhibaankii khibradiisii oo diyaara iyadoo hadala oo kaydsan waxaa kaloo ku jirta in ay live aynu ku bixi karno baarlamaanada sida baarlamaanada caadiga ah oo dooda aad halkan ka samaysaa laga arkayo qalabka waxa weeyaan waxa kantaroolaya halka waxa yaala tab baa yaala waxa kantaroolaya oo cid walba siinaya xildhibaanku uu dalbanaya guddoomiyaha siinaya nambarkiisa iyo magaciisa ka soo baxaya nambarkiisa iyo magaciisa mikrofoonka loo shidmaya ma jiro nin kastana waxa weeyaan waxa ku dalban karaa oo halkan waxaan ku haynaa nin walba nambarkiisa ugu qoran iyo magaciisa xildhibaan waliba kursigiisa uu magaciisa ku qoran yahay arbacadan ku tababarana dilala warsame siciid cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa akhrintii koowaad mariyay sharciga dambiyada kaasoo la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya wariyahana Said Cali Taatiko ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa waxaa xalay ka dhacay dilal aanooyin qabiil ah sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyahana Sundus Bootan wararka ka imaanaya magaalada Balad Xaawo ayaa sheegaya in siyaabo kala duwan ay dilal uga dhaceen gudaha magaaladaasi xaafadda Farjano ee degmada Balad Xaawo ayaana xalay lagu dilay 4 qof oo shacab ah iyadoo 2 kamid ah ay ahaayeen walaalo sidoo kale sida la sheegay subaxnimadii saaka ayaa askari ka tirsan ciidamada booliska waxaa isagana lagu dilay isla degmada Balad Xaawo waxaana lagu magacaabi jiray Faarax Dheere isla sidoo kale maalinimadii shalay magaalada Balad Xaawo waxaa lagu dilay qof kale taasi oo keentay in dilalku ay kordhaan shacabkana ay dareemaan qalqal inta la og yahay 6 qof ayaa 24 saac gudahooda lagu dilay bartamaha degmada Balad Xaawo amaanka magaalada ayaana faraha ka baxay cabsi xoogan ayaana soo wajahday shacabka ku nool magaalada Balad Xaawo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amaanka iyo sidoo kale maamulka degmada iyo kan gobolka Gedo Sundus Cali Bootan SBC Muqdisho guud ahaan daawadayaal ayaan kusoo gabagabeynaa warkii TV-ga SBC oo idinkaga imanayay xarunta SBC ee magaalada Boosaaso dib intaan u kulmi doono nabadgelyo taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo digniin u diray dadka ku jira guryaha dawladda maanta waa maalin weyn oo aad iyo aad ugu weyn ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda booliiska Soomaaliyeed waxaan taaganahay xaruntii hore ee dibdemiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho
waxaan u taagannahay kadib 30 sano kadib burburkii Soomaaliya inaan maanta ka dhagax dhigayno xarunta qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo xarumo kale oo booliisku ay leeyihiin aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay maanta inaan jaaniskan yeesho aan noqdo taliyihii booliiska Soomaaliyeed oo xilligan joogay oo dhagax dhiga waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Muqdisho degan gaar ahaan dadkii meeshan deganaa oo shacabka ahaa si gaar ah fariin ugu diro waxaan rabaa inaan idin sheego meeshan muddo ku soo nooleedeen 30 sano ku soo deganeedeen waa ku soo kifaaxdeen maanta waxaan anagu aan sameynayno guri aan leenahay maahan waxaan rabaa wax qaranka lagu adeegayo inaan ka dhisno inaan ugu taageertaan oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ku taageertaan oo kambaniga dhisaya oo hadda ninkan Kenyaanka uu nagala joogo lagala shaqeeyo waxay meeshan u fiican tahay amnigiina ka shaqeyn doontaa maxay anagu u dhisaynaa qaybta guud maxaa loo dhisay waxa loo dhisiyaa amnigiinii gaar ahaan dadka halkan deganay si fiican ay uga shaqeyso marka cid baa la siiyay iyo hebel baa qaatay iyo ganacsi iyo waxba kama jiraan meeshan qaybta guud baa laga dhisaa iyo jaamacadda hospital Madiina baa iyadana insha Allah ka dhagax dhigayna waana ka dhisi doonaa aad baa u mahadsantihiin dhulka dadka dhan waa ka badan yahay wadankeena dhulkiisu intuu leeyahay waa aragteen Soomaaliya waa dhul aad u ballaaran dadkeeduna waa dad aad u yar marka hal la iimaansado ilaahna laga cabsado buuqa iyo qeylada iyo qorrax istaagga tirada badan la iska daayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheegaya shacabka kaliya ma aha saraakiisha dawladda ama booliis ahaadaan ama military ahaadaan maanta wax wadanka ka socda waa horumar waa la horumarinayaa magaaladan waa ogeedeen 5 sano ka hor see ahayd saakay Muqdisho iyo Muqdisho 5 sano maxay ku wada duwan yihiin idinka sheegaya cadowgeedu waa badan yahay waxaan rabaa in la shaqeeyo haddii sargaal ay kugu soo aado in dhulkaaga laga kiciyo oo la hagaajiyo waa inaad taageertaa oo ka shaqeysaa haddii qof shacab ay kugu soo aado haddii wasiir ay kugu soo aado qof sharciga ka weyn ma jiro sharci baa lagu wada joogaa wixii sharci ka weynaaday shabaab baa sharciga damacayna ka weynaatay iyagana banaanka maalin loo saaray sharciga waa inaan ku wada dhaqannaa intaas fariintaasna waxaan u dirayaa saraakiishii iyo cid allaale ciddii dhul dawladdu ay leedahay isku dhijisa intaas rabaan insha Allah guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii TV-ga SBC oo idinkaga imanayay xarunta SBC ee magaalada Boosaaso dib intaan u kulmi doono nabadgelyo.